dilal u kala geystay muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo gacanta lagu soo dhigay dilalkaas oo ka kala dhacay degmooyinka Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle maanta ay taariikhdu tahay 10 January 2023 abaara 7 subaxnimo ama hal saac oo subaxnimo ayaa eedeysana lagu magacaabo Xasan Chuule Shaakir oo ahaa ciidan u yaal wuxuu si arxan darro ah dil ugu geystay dhibane marxuum cali taliya cariif hadaafow waaxda xawataako ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle shacabka degmada Balcad maamulka degmada Balcad iyo hay'adaha ammaanka ayaa iska kaashaday soo qabashada iyo gacan ku dhigista eedeysanahaas oo doonay inuu ka baxsado goobtii falka uu ku geystay hase yeeshee gacanta lagu soo dhigay isagoo ku sugan meel 20 kiiloomitir u jirta goobtii falka uu ka geystay isla markaana doonay inuu baxsado ayaa gacanta lagu soo dhigay laguna soo simay gacanta ciidanka booliiska saldhigga booliiska ee degmada Balcad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhanka kale isla maantay 10 January 2023 abaara 1:20 duhurnimo ayaa ciidanka booliiska ee saldhigga Xamarweyne ee degmada gobolka Banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay eedeysana ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka Xamar kaasoo si arxan darro ah isna u dilay kaasoo lagu magacaabi jiray Qaasin Ducaale Cabdi oo si arxan darro ah u dilay isna sidoo kaleeto waaxda gobonimo ee agagaarka kawaanka Xamarweyne eedeysan dhibane wuxuu dilay dhibane lagu magacaabi jiray marxuum Abuukar Axmed Nuuraani 65 sano jir ahaa ina hooyo Samaan Cali Abuukar eedeysanahaas oo dilay qofka marxuumka muwaadinka oo wax dambi ah waxba galabsan waxba ka geysanin hase yeeshee sida baarista hordhacaan ku ogaanay in loo dilay cadad lacag ah oo aad u yar ayuu ka doonayay sidaas ayuu askarigaasi qofka muwaadinka ah oo shacabka ah muwaadinka Soomaaliyeed waxba galabsan ku dilay sidoo kale tan Balcad saas oo kale ayuu isna ku dilay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysanayaashaas labadaas fal ee waxuushnimada ah ku dilay laba muwaadin oo Soomaaliyeed waxba ka galabsanin labada eedeysanaba waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay gacanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku jiraan isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay wajahayaan maxkamadda awoodda u leh si cadaalad loo marsiiyo ma jirto sabab ay cadaalad uga baxsanayaan eedeysanayaashaas falalka noocaas geystay sidoo kaleeto eedeysana kasta oo falal noocaas geysta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkeena sharafta badan ayaan gacanta ku soo dhigaynaa waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si ay cadaalad u maraan waa maadsantiin billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh